dunida islaamka ayaa waxaa looga dabaaldegay ciidul adxa oo ka mid ah ciidaha ay sida weyn u maamuusaan ummadda islaamka. meelaha sida weyn looga dabaaldegay waxaa ka mid ah xirooyinka qaxootiga Dadaab. xarada Dhagaxley waxay ka mid tahay meelaha sida weyn looga maamuusay ciidul adxa, ayadoo dadweynaha aad u tiro badan ay iskugu soo baxeen fagaarayaasha lagu tukado salaada ciida, waxaana wajiyadooda laga dheehan karaa farxadda ciida. waxaana ka mid ahay dadkii ka soo qaybgalay caruur aad u labisan, culamaa u diinka iyo mas'uuliyiinta xarada. markii la tukaday labada rakaca ee salaada ciida waxaa hadallo kooban ka soo jeediyey culamaa u diinka xarada Dhagaxley, waxaana hadalladoodii ka mid ahay sida tan: dhammaan muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal ballah insha Allah tabaaraka wa ta'ala. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu camalka suuban naga aqbalo meel walba aan joogno muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida. waxaan u dardaarmayaa inay qulubta isu furaan oo is afiyaan oo meel walba ay joogaan ay walaal ahaadaan. dadka Soomaalida inta badan waxa ku badan inay qalbiga waxay soo hayaan, taana waxay keentaa in camalka aan la aqbalin oo camalka aan la koryeelin. marka qof walba oo muslim ah oo Soomaaliya maadaama aan ku jiro ciidii farxadda aan ku jiro ee weynada ciidul adxa ahayd, waxaan qof walba oo muslim ah oo u diraya ama Soomaali ah ama muslim kala ah waliba gaar ahaan Soomaalida aan leeyahay عافية مسامح قفل بها عافية ولكن qaar ka mid ah bulshadeynta ku dhaqan xarada Dhagaxley ayaa dareenkooda uga waramay TV-ga caalamiga ee Somali Cable, sidoo kale ayagoo hambaliyo salaana hawada u mariyay ummadda islaamka iyo dhammaan eheladooda. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. magacayga waa Cabdisaaq Cabdi, maanta si farxad leh ayaan ku ciidayna magaalada Dhagaxley. alxamdulillahi rabbil caalamiin, kullu caam wa antum bikhair. ya Allah ya muslimiinta dhammaan ciidan waa ciid ma aragtay ma sha Allah. ciidii horena waxay kala duwan tahay, muslimiinta dhammaan way soo wada baxeen, ma aragtay hal meel bay isku wada imaadeen, hal meel bay ku alla badayaan, takbiir bay wada qaadayaan. alxamdulillahi rabbil caalamiin. awalan waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaan, sakhiir iyo kabiir, nisaa wa rijaal ayaan halkan ka salaamayaa. waxaan mar labaad salaamayaa xujayda xujaysanayso sanadkan waajibka tiirka islaamka gudanayso ayaan salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa reer Dhagaxley, waxaan kaloo salaamayaa ma aragtay muslimiinta dhammaan Soomaaliya. maanta si aad u qurux badan baa Dhagaxley looga iibiyay ma sha Allah. waa ciid aad u weyn, ciidaha ugu weyn ee islaamku leeyahayna ka mid ah. marka alxamdulillah Allahna waa noogu nimceeyay ciidan, waa nabad, waa nimco. marka runtii ciidaha kale ciidihii hore ciidan aad bay uga weyn tahay. waa ciid islaamku ugu weyn, waa ciid in la iscafiyo mudan, waa ciid muxuu ahaaye qof walba muxuu ahaaye fuqaraa ama miskiina wixii aad uga tabaroon tahay inaad ku caawiso muxuu ahaaye mudan. marka waa ciidaha islaamku ugu weyn, labada ciidooda Ilaahay noogu nimceeyay mid ka mid ah midda ugu weyn.
runtii waxaan salaami lahaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan soomaalida meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan salaami lahaa ehladayda khaas ahaan hooyaday oo nool oo batuulo maxamed sheekh oo la yidhaaho gaar ahaan waxaan salaamayaa xaasaskayga qaraabadayda adeerkay oo la yidhaaho maxamed xuseen ciya marka dhammaan muxuu ahaaye ehladayda dhan waan wada salaamayaa dambayn ciidan ayaa ah ciida inta badan la qowraco xoolaha nool lana sameeyo udxiyada waxaana jira kumanaan dadweyne oo aan awoodin in ay ka qayb qaataan farxadda ciida oo ku nool xeryaha Dhadhaab oo ka faa'iideysanaya xoolaha nool ee la qowraco maalmaha Carafada. Cali Bashiir Axmed, Somali Cable, xerooyinka qaxootiga Dhadhaab.